fikraddaas ah inaan halkaas ka samayno cafeteria meesha SGR halkan inaan ka samayno cafeteriana waa un fikrad ka dhalatay daba taalay businesskayga accommodationka iyo hoteelada iyo maqaayadaha iyo wixii la midka ah. Kobaca ganacsiga Soomaalida Mombasa ayaa sii kordhaya marba marka ka dambeyso ayadoo magaalo xeebeedkaasi ay caan ku tahay ganacsiga iyo dalxiiska tan iyo markii la bilaabay adeega tareenka casriga ee loo yaqaano SGR ka sanadii 2017 laga hirgeliyay dalkani Kenya. Waxay dad badan oo muslimiin ah oo ay u badan yihiin Soomaalida ka mid noqdeen macaamiisha maalin walba raacda tareenka. hase ahaatee dadka ayaan isticmaalin cunooyinka hilbaha lagu sameeyo maqaaxiyaha kale mana aysan helin maqaaxi Soomaaliyeed oo ay ka helaan dalabaadyadooda. Cabdullaahi Maxamed Xuseen oo lagu garan og yahay Gelinson waa ganacsade Soomaaliyeed oo muddo badan ka shaqaysanaya Mombasa. wuxuu hadda xarunta laga raaco SGR ka ee Mombasa ka sameeyay maqaaxi cusub oo ugu talagalay dadka muslimiinta gaar ahaan Soomaalida. waxa uu sidoo kale halkaasi ka hirgeliyay goobo ay ku ogaan salaada inta ay sugayaan SGR ka. dhammaan adeegyadan hore uguma jirin xarunta laga raaco tareenka ee ku taala magaalada Mombasa. Cabdullaahi Gelinson ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ku dhaliyay in xarunta SGR ka uu ka hirgeliyo goobtan ganacsi. aad baan idinku mahadcelinayaa boqoshadiinnan. su-aasha ay weydiisay horta iska dhinacay badan tahay oo Soomaalida guud ahaan tijaarada geeska Afrika, East Africa dadka aadka u muuqday ku jiraan dhinac walba. hadday noqon lahayd dhinaca transportationka iyo hoteelada maqaayadaha, ganacsigan kale oo maaragtay dharka, bagaashka, inta laga ganacsado Soomaaliya hadda aysan ku jirin ma jirto. East Africa marka la joogana dad hal abuur leh oo muuqda way sidoodaba hadda marka la fiirsho community business community waa lagu tiriyaa marka hadda East Africa la joogo. iyo dabcan saan maqlay meelaha kale ba caalamka waa dad hadday fursado helan ka faa'iideysta hal abuur badan leh. marka guud ahaan dhinacyada kala duwan ee tijaarada meel ay Soomaali moog tahay maanta inaysan jirin baan filayaa. taa inta haddaan uga gudbo arrintan aan weydiisay oo hoteelada anu horta taqriiban 20 sano ugu dambeysaba businesskayga wuxuu u badnaa dhinacan accommodationka hoteelada iyo maxaa la jiray iyo maqaayadaha iyo wixii la midka aan ku jirnay. fikraddaas ah inaan halkaas ka samayno cafeteria meesha SGR ka halkan inaan ka samayno cafeteriana waa un fikrad ka dhalatay daba taalay businesskayga accommodationka iyo hoteelada iyo maqaayadaha iyo wixii la midka ah. marka fikraddaas saasaan ku helay ayaantii SGR ka la asaasay baan isku dayay inaan howlahaas qabanno. adigu ilaahayna waa noo fududeeyay alxamdulillah. waxaan ka helay maaragtay meesha hadda coffee shop ka ah baan ka helay. coffee shop kan adigu waan furay hadda taqriiban muddo isku celcelis ilaa 4 bilood 5 bilood baan yaa diyaar ahayd shaqadu. laakiin waxaa naga soo dhexgalay shutdownkii maaragtay oo xanuunkan coronavirus ka sababay. haddana waxaan dib ula bilownay markii dib loo furay isu socodka Nairobi iyo Mombasa. marka insha Allah taala waxaan aad u rajaynaynaa ama aan ku tala jirnaa in uu noqdo business mira dhal ah oo macno yeeshay inuu noqdo. saasaan ku fikiraynaa insha Allah taala. sidoo kale Gelinson ayaa sheegay in goobtani ay ahmiyad gaar ah u leedahay guud ahaan muslimiinta maadaama ay ka helayaan cunooyinka xalaal ah iyo masaajid ay ku tukadaan maadaama dalkani Kenya ay ku nool yihiin dad badan oo kala diimo ah. wallahi ahmiyad weyn bay u leedahay. Soomaalida kaliya waliba ma ahayd wixii islaam muslim inta badan dadka muslimka ah waxay raadiyaan marka ay safrayaan meel ay heli karaan cunto xalaal ah maadaama hadda wadankan la wada degan yahay oo dadka hadda ka ganacsada aysan Soomaali kaliya ahayn ay yihiin Soomaalida laga badan yahay dadka aan muslimka ahayn ay u badan yihiin.
marka Soomaali kaliya ma waxaan dareemaynaa markay magaca al-mashriq arkaan dadka inay nagu soo leexdaan sababta ay nagu soo leexanayaan waxay tahay in cunto culture-koodii iyo diintooda waafaqsan ay halkan ka heli karaan marka adigu cuntooyinkoodii baan u sameynaa culture-iska kala duwan dadka Swahiliga macnaha Arabian dish-kan sameynaa Somali dish-ka dadkan Swahiliga loo yaqaan coast ku badan dish-kooda sidoo kale waan sameynaa iyo dadka kale laftoodu oo san ka reebanayn Hindida iyo dadkan kale madowga ah maaragtay wadanka u badan intaba adigu cuntooyinkoodii waan hagaajinaa marka laakiin anagu waxaan nasiib gaar ah aan u leenahay inaan ka faa'iideysanay wixii islaama iyo Soomaalida haday aan arkaan aan meel kale aadeen oo cafeteria maaragtay arkaya inay meel waxay u baahnayeen ka helayaan ay tahay runtiina aad bay ugu farxaan waana noo mahad celiyaan tasiilaad fara badan oo u diyaarinay waa jiraan oo dadka muslimka ah masaajid baa goob yar oo maaragtay lagu tukado salaadaha lagu tukado oo maaragtay baan u sameynay oo masaajid yar ah marka dadku xilliga safarka inay ka helaan halka meeshii ay ku cibaadeysan lahaayeen ka heli lahaayeen maaragtay kafeegoodii ishaahoodii snackskoodii ay ka heli lahaayeen ama cuntadooda kalaba intaas oo dhan marka waxa weeye waxay dadku aad noogu amaanaan noogu maaragtay nooguna mahad celiyaan aad in loogu baahnaana way noo sheegaan ilaa hadda marka qaabiliyad fiican baan ka helnaa dadka muslimka iyo Soomaalida intaba Gelinsoon ayaa dhanka kale bidaamiyay in goobtan ay ganacsiga Soomaalida Mombasa door muuqda ay ka ciyaari kartaa maadaama Mombasa uu ka jiro tartan ganacsi oo u dhaxeeyo qowmiyadaha ku nool wallahi Soomaalida horta guud ahaanba waaniga ku sheegay East Africa sumcad bay ku haystaan oo community business baa loo yaqaan dad hal abuur leh waxna soo kordhiya marka dadka wadanka degan nooci doona baa noqdaan ama gobolkan East Africa ku nool Soomaalidu markay arkaan waxay u ogyihiin inay dad ganacsi oo hal abuur leh oo maaragtay business-ka ku fiican inay yihiin annaguna hadda marka sumcadaasi dabcan qayb baan ka nahay oo macnaha meeshii SGR-ka ahayd ama uu tareenka ka baxay maxadadii tareenka ka baxay oo kale in ay dadka Soomaalida ee safraya ama dadka islaamkaba ay ka helaan hadda meesha waxa ku taala goobta hadda waxa ku yaala waa ma badna maqaayada ku yaala ama cafeteria ku yaala ilaa hadda waa saddexda midna waxa iska leh dadkan madowga wadanka u badan midna Hindi baa leh midna anaga Soomaalida leh marka hadii Soomaali iyo Hindi iyo madowga kale marka dad inaan macnaha community business oo maaragtay hal abuur leh oo ummadda wadanka joogta la tartamayo oo dhinacooda iyo kaalintooda kaga jiraan loo arkaa marka sumcadaas way jirtaa in Soomaalida loo arko dad hal abuur leh business-ka ganacsiga ku fiican oo community-da business-ka ku wanaagsan inay ku jiraan fikradaasi guud ahaan horaaba loo qabay oo East Africa markaad joogto dadka ku nool Soomaalida waxay ku tirayaan dad hal abuur leh oo maaragtay hor u kac business-na sameyn kara fikradana la iman kara kana dhabayn kara inay yihiin dhanka kale Cabdullaahi Maxamed Xuseen Gelindoon ayaa dadka doonayo inay u dalxiis tagaan Mombasa hore u diyaariyay Hotel Jundan oo ka mid ah hoteelada ugu casriyeysan ugu bilicda iyo nadaafadda wanaagsan ee hoteelada Mombasa qaar ka mid ah macaamiisha oo ka hadlay sida ay u arkaan maqaaxidan cusub ayaa si weyn u soo dhaweeyay helida meelo ay wax ku cunaan isla markaana ay ku tukadaan Hotel Mashallah, the food is so sweet, a very nice place. Welcome all. helidda adeegyada asaasiga u ah Soomaalida waa mid diif iyo nadiir ah inaad meel walba ka hesho hase ahaatee goobaha loo diyaariyay dadka ayaa ah kuwo aad loogu riyaaqay